meelay ku sugan yihiin hal sano iyo bar bay ku sii dhow yihiin waxaan codsanaynaa marka ilmaheennii inaan nolol iyo geeri aan ogaanno waa naga codsi dawladdan ka codsanaynaa ilaa iyo hadda waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed waxa la dhahaa Nuurta Macow Nuur laba cunug baa iga maqan halna eedaan ahay walaalkay dhala ogaan waaye halna walaashay dhashay meelaan ku sheegna ma naqaano haday muslimta madaxweynaha si degdeg ah noogu soo hadlo ilmaan caruur baa naga maqan ilma baa naga maqan caruur baa naga madaxweynaha hadoo madaxweynaha xisraas wasaaraha dawladda sharafta lana soo wada ilmaana noola kaano meelay jiraan ma naqaano labada bishii lixaad 17 baa la waday meel bishan June war ma aqaan warkii dhan waa igu dhumay caruur baa naga maqan inay dhintaan inay noolaan dhintaan ma naqaano la ilaaha illallah muhammad rasul marka waxaan rabaa ciyaalkaas intaas oo dada hadashay waxaan rabaa ciyaalkaygii meel in lagu sheego ciyaal badan baa iga maqan 3 cunug baa iga maqan meel kuma sheego ma hargalo ma hurdo ma hooydo ciyaalka waxaan rabaa ninka codkayga maqlaayo muslina inuu faataxada ii soo maro ciyaalkaygii meel kuma sheego meel kuma ogi abeen ma hargalo maalin ma harsado ciyaalkaygii meel alla iigu sheego madaxweynaha ra'iisul wasaaraha intii ummada muslina faataxada inay noo soo maraan codkayga ninkii maqlo faataxada inay soo maraan ciyaalkeennii meel kuma sheegno mana hargalo mana hooyana habeenii maalin waa soconaa wax noo sheegana ma aragno meeshaan tagnana waxaana la leeyahay horta ka taga meeshaan horta ka taga waxba idinkama maqnaa horta ka taga waxaan ka codsanaynaa ninkii codkeena maqlo oo muslina oo ummadda nabi maxamed oo ka naxaysa waxaan rabnaa codkeennii inaan intii muslima faataxada noo soo martaa rabnaa maantay hadafka halkaan iskugu kaaya keenay iyo hawshaanna kulmisay waa arrin aad iyo aad murugo noogu haysa weeye beerkayagii baan weynay keliyahayagii baan weynay ubadkayagii baan weynay dawladdii naga qaadayna waana maqli weyday wax kastana waa ka hadalnay wax jawaabana waa ka weyn ma ahan dawladdu inay isindhatirto isna dhagatirto isna carab tirto waa inay ka hadashaa waxa ku maqani waa dad xoolo ma ahan haddii ilaahay kuu reeyaan badeeca ma ahan dad baa ku maqan dawladdu waa inay dadkaa noloshooda sheegto ama geerideeda sheegto ubadkii nin la askareeyey Itoobiya laga iibshay iyo Eritrea la geeyey iyo Aksum baa lagu laayay madaxweyne waxaas waa u adkaysan weynaa annaga waxaan aqbalaynana ma ahan codkaaga caddee wax sheeg ninka raggaah waxa fiican inuu wax sheego shacbiyadaana wax u sheeg shacbiyadaadi weeye ummadii adigu aan madaxweynaha u ahayd weeye sidaan ina walbahaar hal kelimo adiga aad oran kadid ina walbahaar iyo walwal ku abuurtid maahan in warkayga intaasaan ku soo dhaweynaya codsi dheer iyo codsi gaaban intaba inay natixi geliso inay bani'aadan baanu nahay ilmaha naga maqan kuwa naga maqan oo sidaas noogu dhibaysaan hadday idin yimaadaan waalid kasta wuu sheegaya dhibkii loo geystay suurtagalna maaha waalidkiis intuu gooyo inuu nin kale u shaqeeyo waxaan codsanaynaa awlaadda waa dhalnay idinkana ciidan bay idin yihiin waa ciidamo qaran baa tiraahdeen dad baa la laayaan maqalnay adduunkii oo dhan maa isku kacay dawladdu haraggan ha iska rogto haddii wax jiraanna ha caddayso ha tiraahdo wardadow geeri waa loo joogaa intaan baa dhimatay haddaysan wax jirinna ha tiraahdo dadkii baan idinla hadal siinaynaa waxa la sheegayana annagaa beeninaynaa shacabka u raalli ahaada waalidka u raalli ahaada magacayga waxaa la dhahaa Faadimo Yuusuf Kulane waxaa iga maqan wiilkaas oo laga qaaday bishii sanadkii hore 2019 bishii 10aad 15keedii wiilkaas ilaa xilligan hadda aan joogo wali wax war kama maqlinin waxaa markii hore wiilkaas loo qaaday ilmaha waxa la yiri dugsi sare uu sanadkaas dhameeyay waxa la jaamacad qadaraha oo leedin geynaya ilmaha waxbarasho la ku waayaa ka bacdi waa leedin soo celinaa hadii ilaahay idmo ilmahana saasan ku dhiibnay wixii ka dambeeyana wax war waa ka weynaba waxaa noogu soo xigtay in la dhoo ilmihiinni waa baabeen ilaa waxa laayay baalka tigraalaysay madaxweyne abi baa la siiyay balaayo iyo hog baa noo socda
anaga waa ma seexano ma harsano ma hoyano bila aadan baan nahay ilaahay baan abuurtay idinkana ilaahay baa idin abuurtay wadankana idinka dawladka madaxweyne waxaan ka rabnaa ilaahay inta ka cabsatid oo rasuulkiisa ka cabsatid inaad ilmaheena haday dhintaan meedka noo keentid haday nool yihiin nolosha noo keentid ilaahayna aad ka baqdid baan rabnaa adduunyo waa waxaan aqral la tagi doonaa maanta qiyaamaha ilaahay waa gula xisaabtami doonaa shacabkan adaa mas'uul iyo madax ka ah allah ku abuurtay ka cabso wadnahaana fadhiya cunto ma cuno ma seexano ma harsano allihii ku abuurtay ka cabso ilmahani waa maqan yihiin waa weynay meel ka raadina ma naqaano adaa ilmahani naga kaxaysa ilaahay ku abuurtay ka cabso haddaad ra'iisul wasaare leedihiin iyo haddaad wasiir baarlamaan leedihiin iyo haddaad bahalkii leedihiin kulligiin inta isku tagteen ilmahani noo keena hadday dhintaan meydka noo keena hadday nool yihiin noloshooda noo keena xilligan tababar ilma kuma maqaadaan adduunka dhan waa la wada keenaa kuwaad eltariya ku xaraysaan maxaa fariisiyey duumaadka dhan baad ka soo daldalaysaan hamaani maalin waa taagana mana harsana mana hoyna waxa dhaca iyo waxa jiraan waa ognahay ilaahay ku abuurtay ka cabsan madaxweyne anaga nala tixgali nala hadal shacabkaagii baan nahay allihii ku abuurtay ka cabso geysto warka la ii sheega ma raadiyo intaas waxaan leeyahay maalin ka mid ah ama war ay ilmahaas leeyihiin ku soo duula oo dhageysataa wax dhagala oo kala anahay man nolol aan ku noolahay ma jirto dad iga wada liitaa jira oo dhibaataysan oo jiran oo sonkor qaba oo dhiikar qaba waxaan codsanaynaa oo maanta cod dheer ku codsanaynaa oon ka codsanaynaa dawladda aan maanta ilaahay baan hoos joognaa aan hoos joogno oo nin walba oo maanta na dhageysanaya oo islaam oo dawladdaas wax ka gala awraadaas maqan oo geeri iyo nolol midna aan ahayn oo 2 sano ay cagacagaynayaan oo noloshooda aan ahayn oo geeridooda aan haynin inna la ka shaafiyo oo dawladda dhagaha noo furto oo dhagaha noo furto oo noo dhaganulaato hooyaan nahay ragga waxay rabaan hay ku sameeyaan laakiin hooyooyinka cabanaya waa in dawladdu u soo jeesataa oo dawladdu ilgooniya ku fiirisaa oo hooyo Soomaaliya nin walba hooyaa dhashay ilmihiina fiiriya maanta inta madax ah nin ilmihiisu dalka joogaan ma jiro nin walba meel buu ku raaxaysanaya anigu xabadan ku soo dhex koriye intaas oo maanta aabe iyo hooyo hadlahaya nin maalin ilmihiisu wadanka ka baxeen ma jiro xabadii 30 sano ahayd baa nin walba ku dhashay ilmahaad maanta ka haysateena waa 20 jir waa dareemin kartaa 20 jir waxa lagu soo koriyay mid agoonaha jira midaan maxay hayta wax walba alaha ku wada jira dhibaato xun baan haysatay dhibaatada waa in laga jawaabaa madaxweyne waxaad u dhaaratay dalka iyo dadkaad u dhaaratay annaga kamid ah hooyo Soomaaliyeed oo ku hoos taagan calankaaga maanta oon awood lahayn albaabka aan garaacnana wax naga furaya male albaabka aan garaacna oo dawladda wax naga furaya male nin kastana waa naga faa'iideystay nin walbaaba hadal aan qaadan karin buu noo keenaa dawladda hadalka ka soo yeerana kumaanaan qancin wasiiradeedii weeye waxa hadlahaya oo annaga noo dhaartay weeye ninka maanta ka meermeeraya geeridoodii noloshooda ma ku qancin mana ku qanci doono laakiin madaxweyne waxaan ka codsanaynaa ama madaxweyne am nin alla ninkii xilka haya maanta dawladda farmaajo nin alla ninkii xilka haya nin kasta ha u dhasho ninkii maanta xilka haya inuu ka dhiidhiyo oo nala hadlo oo waxna dhaho oo maanta kaliya uu jawaab horta uu jawaab nala siiyo wargeeri waa naqaana kuwii naga horeeyay dhinta aabayaashoodan soo wada duugnay laakiin maanta dhibaatada jirta geeriya nolol maalinba in YouTube hadlo oo nin ilmihiisa biil ku raadsanayo anigu biil igu raadsado oo mid kale ma maxay taasoo oo xildhibaanada dawladda kamida laftigooda ay nin mas'uul ah oo ku hadlo yiraahdo 3,000 oo nin baa dhimatay maya madaxweyne taas maya assalaamu calaykum